maadaama imaaraadkii ay Soomaaliya sheegtay in laga saaro dalkeygina ay sheegtay inay ka eriyeen ama heshiisyada ay ka noqdeen inkastoo ay awoodi kari waayeen oo Kismaayo Boosaaso iyo Hargeysa Somaliland iyo dal gaaraba aanay suurtagal ahayn ma aqoonsan doonta Somaliland imaaraadku oo ma noqon doona dalka labaad waa qodobka kale ee aan ka hadli doona isna waxa weeye waftigii ugu horeeyay baa soo gaaray Laascaanood yani fiqi baa soo duulay oo dhabarka wali intuu ka jabiyay nimankii reer Laascaanood ee waqooyi bari maamulka la baxay ku yiri Somaliland dal leeyahay baan tagnaa isagoo Laascaanood u jeeda okay halkaana ceeb baa ka raacday nimankii oo maadaama oo ay go'ayeen lagu yiri Somaliland dal leeyahay baan nagu tagnaa okay markaa waxay uga jeedaan halka waxa ka dhici doona ma Somaliland ma dagaal bay ku qaadi doontaa ما maxay ujeedada ay xamar ka leedahay dalalka riixaya mashaakilkan ee raba in halkaasi laga dhowr jeer hore aan ka hadlay haddana si fiican aan idinku faahfaahin doono labada qodob ayaan idin hayaa sidoo kale taliyaha sirdoonka magasimaha sirdoonka Itoobiya soo gaaray Muqdisho isagoo fariin uu ka siday la sheegay in Abiy Ahmed in aanu arinta Laascaanood tagin hawshaana uu ka daayo يا arrimo imaaraadkii waxyaabaha la xiriiray adu intaasan qodobadeena ku soo jeedin doona aan ku horeeyo waan falanqeyn doonaa Laascaanood iyo wax ka dhici doona iyo ujeedadoodii waxa aan marka hore ka hadlo imaaraadka ma aqoonsan doona Somaliland okay haddaba imaaraadka inta badan wadamadii kale ee bagaranaysa uu deganaa badi waa laga soo saaray tusaalaha Yemen oo kale inkastoo Suudaan Liibiya meelo badan buu kaga jiray laakiin arinta ugu weyn wuxuu ku lahaa Somaliland maalgashiga ugu badan buu ku sameeyay Soomaaliyana Kismaayo iyo Puntland Boosaaso ay ka joogeen dekada iyo hawlo iyo ciidamo Soomaaliya wuxuu ku sameeyay jiray investment fara badan lacag la 4 bilyan ayuu garin jiray ciidamo taabiri jiray waxyaabo fara badan buu sameeyay jiray iyagu laakiin waxay leeyihiin Somaliland heshiiskeega ayuu dabada ka wadaa ilaa imkana wax cad oo toos oo imaaraadku ma oran tusaalaha waan aqoonsaday Somaliland laakiin muxuu cambaaray waay muxuu halka adigu dawlado kale ayaa dabada ka riixaya sida wararka ku heelano Sacuudiga iyo Turkiga group noocaas ah dabada ka riixaya oo raba in laga eriyo Soomaaliya haddaba Jubaland way soo saartay baaq ay ku diidan tahay oo ma tagi karto dawladdu iyo khasab ku furin karto waayo markaad shay wax diidayso may oranin reer Soomaaliya ra'iisul qofkii oo hadlay golaha wasiirada ma oranin haday bixi waayeen talaabadaas qaadana taasna waxay iska cadaynayaan inay wax sameyn karaan okay sida wadaarkiisa markaa way diiday Jubaland Puntland way diiday Somaliland awalba u kuma jirto waa dal madax banaan inta markay arintu noqonayso haddaba waxa la sheegayaa in imaaraadku uu diyaarinayo in uu Somaliland aqoonsado ama uu dal isku horeysiyo ama ugu horeeyba okay taasina waxay ku keeni kartaa in arintii ay sii weynayso oo hadiya jeer ma aragtid xulafada ay kala baxayaan xulafadii isku dhex jirtay Qatar iyo Turkiga iyo Masar iyo nimanka la yiraahdo Sacuudiga Shiinaha groupkaasi ay Soomaaliya tagaan dhanka kale Somaliland Israa'iil Mareykanka iyo Imaaraadka iyo wadamadii kalena ay halkan Somaliland iyaguna hawshooda istiraatiijiyada dhulkana sida sheegeen xalay toole ee la taliyaha wasaaradda ee Mareykanka ayaa hadlayay sidoo u sharxay wadiyaaba saade arinta Somaliland iyo inay ma aragtay mowqifka taagan kii Turkiga wasiirka arrimaha Turkiguna arrimaha dibadda Turkiguna isna saasoo kale yani way isla garanayaan inay Soomaaliya waxba oo hadii Somaliland ka goodo halka ay dhig maxaa haddaba xigi doona Xasan Sheekh bal Imaaraadka halka kaga baxo Xasan Sheekh waxa uu tagayaa loo gogol xaadaya Laascaanood fiqi waxa uu soo qoray Somaliland wadan la yiraahdo taganaa nimankii halkan dhulbahanta deesaasay hawshoodii u wadaan horta mid ma ku sheegay meesha dagaal baa ka dhacaya waana la isu reeyahay Somaliland iyo Soomaaliya waxay isku dilayaan gobolkaasina wuxuu noqon doonaa galbeedka ama bariga Sool waxa loo yaqaan wuxuu noqon doonaa Kashmiirta Somaliland iyo Soomaaliya maxaa hadaba dhici doona waxa la yiraahdo ood ka dheeri kuma dhaxanta nin aan ku furi doono horta yaan ku rarin tusaale ku siinaya
weligeed iyo allihii taariikhda lama arag midhayga qor weligeed iyo allihii taariikhda lama arag iska daa Somaliland oo maanta midaysan oo dawladda isaaqo kaliya oo midaysan oo laga adkaaday weligii taariikhda lama arag tusaale ku siinaya sayidka halkaas uu istaagay dhulbaxantu soo kaxaystay Soomaali kale uu soo kaxaystay awood buu isfiday Ingiriis bay u yeedheen nimanka isaaq way u midoobeen waxay ku yiraahdeen diyaarada yarna soo kaxee annaguna dhulkaan ka galana khalaas dhulbaxantana wuxuu noqday haaway waa la qaybsaday uu baaba'ay wadogeedeen maalinta isaaq midnimo ku jabiyay sayidka maalin kalena isaaq isagoo midaysan buu Ingiriisku markii uu bixiyay dhulkii Hawd Reserve Area ayuu kacay Somaliland intii kalena way la qaadato gadabuursiyo dhulbaxantii intii kale ay wada deganaayeen waxay yiraahdeen Ingiriis oo nasi xornimadeedii nasiyo bartaasaar wuu qaatay maalin kalena way midoobeenoo SNM iyagoo midaysan ay dagaalameen siyaad bar 200,000 oo ciidana buu keenay iyo intaasoo jabhadood iyo intaasoo qaxootiya waxa ka dhacday may dawladii xareyba ayaa ka dhacday halkaasay mareen 200,000 ciidanka ahaa iyadoo hubkii lagala harayo ay halka ka baxeen maalintii soo kaxaystay uu siyaad bar dhulbaxantu la dagaalama maalintana way jabeen soo ma aha halkaasi maalintii saddexaad waxa weeye sayidka Ingiriis iyo siyaad bar maantana xasan sheekh ay u midaysan yihiin waxa la socda maanta hadaba gadabuursi oo reer Somaliland oo garab taagan xagaana way u jeedinayaanoo way u dhamaatay nimankaas haddaba dagaal u dhici xulafana nin kastaaba uu haystaa ama isku hadlee Turkiya Shiina iyo maxay iyo hawlo kale ama isku hadlee dawladda ilaalin kari weydii maamulkeegii horta dagaal u dhacaya dhulbaxantana wuxuu ballan ku galay inuu xasan sheekh dawladdiisa garab istaago Somaliland oo soo weeraro burciya hargeysa barbaran xoog ku soo qabto waa awoodii oo hadal taas ku soo jibir haddaba xaaba laga dhigayaa xaabada marka lagu shitay loo kala tago ee halka maraan Britole ee maanta dawladda xasan sheekh dhaqaale ma hayso cidima garab taagna waxa maanta dabka gelinaya waa Turkiya Shiina iyo guruuba aan Britole aad arki doonto iyagu Somaliland la heshiisa maxaad haddaba arki doontaan waynu wada joogi doonaa waa la noolaan waxa aad haysaan soo daaya haddaba dawladda Djibouti ayaa ninkan la goynaysa oo kula galbeedkan ka sameynaya anna maamul goboleed guban la yiraahdo ciise leeyahay gadabuursi baan soo shidaalinaya huuha adna xaga bariga ka soo baxay labada daraf aynu kaga qabanno gaasi kabri waxa la kala helo wayna arki doonaa iyo maalinteeda barnaamijka sheer gare la wadaaga asxaabtaada aad iyo aad baan ku salaamaya